السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواذا برنامجك كطيو رمضان كريم. برنامج كانوا ما توحى دارين هاي أبو بكر الصديق إمي سحاس أيو لها إمي سعرورة أي أكلا دالي. أبو بكر الله كرهالي نقضي وحا أقورسدي أفرحاس وحانو إلهي كدقي صدح لب يصدح دقيق gabadhii ugu horeysay ee uu Abubakar guursaday waxay ahayd Qutayla bintu Cabdilcuzza waxaanay u dhashay Asmaa iyo Cabdillaahi kadibna waxa ay kala tageen xilligii jaahiliyadda. Gabadhaasi way nooleed ilaa ay soo gaadhay Islaamka, sida raajixa ahna may soo galin Islaamka, balse culimada qaar waxa ay tiraahdaa inay islaamtay cumrigeeda intii ugu dambeysay. Markii ay muslimiintu u hijroodeen Madiina, Qutayli waxa ay u keentay inanteedii Asmaa hadiyad. Asmi waxay isweydiisay hooyada oo ah qof aan muslim ahayn ma ka aqbalaysaa hadiyadda. Waxa ay Caaisha u dirtay Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaanay ku tiri ii soo weydii in aan ka aqbali karayo hadiyadda. Nabigu waxa uu ku yiri Caaisha radiyallahu anha ha soo dhaweyso وهسوغليسو حنك أقبش هديدا. إلهينا سبحانه وتعالى وحاو سوتجي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. waxaa kaloo ka mid ahaa xaasaskii Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu Roomaan oo u dhashay Caaisha iyo Cabdiraxmaan. waxaanay ka mid ahayd haweenkii ugu horreeyay ee Islaamka soo gala waxaanay geeriyootay xilligii Nabiga sallallahu alayhi wasallam. haweeneydii saddexaad ee Abubakar waxa ay ahayd Asmaa bintu Umays. Asmaa bintu Umays waxa ay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee u hijrooday ardul Habasha iyadoo la socotay ninkeedii hore Jacfar bin Abi Talib isaga oo 22 jir ah. waxaanay u dhashay 3 carruur waxaanu soo noqday sanadkii 7 ee hijrada iyadoo oo da'diisu tahay 28 jir. in muddo ah markii uu joogay Madiina waxa uu u baxay dagaalkii Mu'ta halkaasna ku shahiiday. kadib markii ay Asmi ka baxday xilligii ciddada waxa uu soo geed fadhiistay Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu waxaanay u dhashay inankiisii Muhammad bin Abubakar as-Siddiq. ooridiisii ugu dambeysay ee uu Abubakar guursado waxa ay ahayd Habiba bintu Zayd. Habibi waxay ka mid ahayd Ansaarta waxaanu ka geeriyooday iyada oo xaamila waxaanay u dhashay inantana Caaisha ayaa u bixisay Kaltuum. sidaas ayay ku noqdeen carruurtii Abubakar 3 lab ah Cabdillaahi, Cabdiraxmaan iyo Muhammad iyo 3 dhadig ah Asmaa, Caaisha iyo Kaltuum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.